السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada kooraskii reactiga ahaa marka hadda waxaan rajeynaa very clear inay ku kala tahay folderskan oo fileskan kala fahansantahay kaliya waxaa ku dhiman filekan update.js muxuu ahaa yani sidee loo sameeyey so horta qoraalada ku qoran horta we don't need inta badan markaa kusoo shootid kan waa lasoo deleedaa so qoraalada ku qoran oo dhan we don't need infant all of these qoraalada dhan ku qoran ma jiro ma u baahnin okay laakiin inta aanan deleedin horta fiiri waxa ku qoran variable so meesha waxa ku qoran import soma waxa la soo import jiray app.css kan appkan waa bedelino aslan filekaas sarta istiraaco waxa kaloo la soo import jiray logo oo la soo import jiray meeshan oo loo yaqaano qaybtan oo public la soo import jiray .4 hadii noqoto .4 بعدين قطع و public جواي okay so .4 meesha ku aragtid waa public so kala reacti loogada kala reacti leedahay inta la soo qaatay assets kan so I think waxa filayaa qof oo waxaan la yaabaa inuu jirina u maleynaa because waxaan waa SVG waay SVG waa la yaabin just sabir la bis as a log hadii Visual Studio loo furo as a log like this oo noqona sida caadiga waxa waaye sabir caadi waay okay so labadaas sabir meesha lagu soo import gareynaa okay so kala waxa la soo import gareynaa UC state oo loo yaqaan react hood okay so react hood markaas qayb dhan oo gaar ah react hood qasabta inaa qaadatid oo aad baratid weeyaan react hood waa very important okay meesha markii react hood un baa la wacay oo loo isticmaalay okay so aad deleeday qoraaladan kala markii waa HTML caadiga iyo react isku darsan oo react adi jirnay JS marka arkayna qaabka la soo daro ilaa hadda bilaa uu banaanay ilaa hadda code reactive maan qorin so wili wax baan kala fahmeynaa okay so intaan waa markii inta lagu bilaabay okay what is this function caadi weeyaan yes waa function caadi okay so function caadi waaye function caadiga u jidid wuxuu soo celinaa return uu bilaay tawfiiq intaas waaye so sartan kale waa u jidaa export waaye so export default ama export in inta la hormariyo labadaas mid waaye okay so ima export default kadib aa wacdid magacaasi oo abka ahaa ama export ina inta hormariso waa intaas kaliya so qof function aa qori jirin hadduu jiro marka koorso inuu iska joojiyaa reactiga inuu xooso javascript waa inuu xoojo soo saaraa so haddii aad qori jirin function oo aadan fahmi karin inta yar code please waxa qasab inaad ku laawtid javascript okay so waxa ujeedaa marka laba mid waay ima in export default la hojidibna magac la qoray ima in export la hormariyo yani function caadi waa isla naqaana soo ma yani waxaan kale export wuxuu yahay ana idu saaxida diwaan ka sharxina function ka elephant soo ma so caadi HTML ka lagu qoraya wuxuu soo celinaa HTML kan kale laakiin wuxuu soo celinaa I am react kale soo celinaa okay let's see arana marka qaabka soo bandhigi leen I am react amlo soo celinaa okay so tan markii intuu ku qorayahay waxa la rabaa in la soo bandhigo qaybta marka ma soo bandhigayso ujeedada page marka soo muuqanay because kan ma ku dhex jira kan because kan ayaa ah mid ka markaas soo muuqanayo sooma so kan sidee u soo dhex gelinayna marka component markaas samaysid saan hadda component ku samaysay I think waxa filayaa everybody will gonna know about making component because qof walba javascript iyo sooma so yani function sameeyay function kii project kana furay waxa soo celinayaa dhahay return kadibna kan ayaa sheeday billahi tawfiiq waa intaas kaliya okay so intaan component sana loo sameeyaa just waa function kaas meesha marka sidee uu soo muujinaa marka soo import gareynaysa marka waxaysa import kadibna waxa sheegaysa magaca marka ku import gareynaysid like magaca waa bedeli kartaa hadii app un baadheena kadib from meesha yaala sheegaysa marka hadda kan intuu yaala kan wuxuu ku dhex jiraa isla meesha yaala sorry so .4 adesa kadib magaciisa sheegaysa kadibna extension kara siisanaysa if you want like inta badan you don't need extension okay kadib waxa dheena marka sidee hadda u soo muujinaa markan waxa dhahaya app oo kaliya mara may saameysto waxa leedahay calaamada oo markaasi smaller than kadibna tradertan yani waa soo xiraysaa yani tag oo closing tag okay saasa ka fuudina ku dhawaaqo self closing tag sameynaysa oo ah magaca components asoo ku soo import garaysa okay so app ayaa dhahay kadib aba intuu bixiyo appkaas intuu isticmaalayo waana waxa ka dhiday tag oo closing tag caadi waxa taqaaniin tusaale paragraph tag inuu yahay sidan so tag caadi noocan oo taqaaniin kan hada waa self closing tag waay oo qaybtan markii qaabtan loo soo xiri doonaa okay so hadda daa fiirino waxa arkeynaa let me show you waa ina aragnaa
qoraalkii. Okay, let's see. hadee waxa cilada jirto waxaan fiirinaynaa qaybta hoose inspect waxaan sharxiri waa yara ilaa I'm sorry. marka meeshaan wuxuu leeyahay marka yani maadan soo export gareyn marka wuxuu leeyahay export aad leediina waaye does not provide an exported name wax exported name oo default ah soo siisay ma jiro magacan app uu cusub qaab noocaas waxa soo export gareysay oo meeshaan ku jira ma jiro soo marka appka imaanaysa marka waa inaad soo export gareysay export default. Okay, وانا صورة سو اكسبورت فولتي كده اب كمجا ايش اشياء يعني مجا كو اكسبورت جريديس كده بهدرت اوريدي مركا وانا شقنايا ان هدي ريفرش ارانو انت قرالتا سو مقدونو oo ahaa I am react marka hadii ay la socodid marka meesha la fiiriya H1 tan wuxuu qaatay kalarkii haday oo aan H1 ta siinay iyadoo aanan ku qorin filekii haday aad ku qoray oo mainka hadaa means waxa waaye mainka hadaa mar ah inta wax ku soo import gareysid waxa saameynay dhammaan files kale iyo components kale ee hoos la soo hoos geliyo mainka hostiisa la soo hoos geliyo ama mainka la yimid dhaxdiisa loo soo import gareeyo mainka dhaxdiisa that means hadda kan install ina ku import gareyn iyadana muu baahin. Okay, so hadda xarjina inta yarna ina fahanti oo aad markaasi si fiican oo ka dhacdo. Okay, so inta waaye qaybta markaa sameynta components-ka laakiin inta badan way adag tahay mar walba inaad dhahid function mar walba inaad dhahid function inkastoo saan loo sameyn karo haddana magaca bedeshid kadibna meeshaan aad ka bixishid kadibna aad dhahid return kadibna bracket aan furtid kadibna H1 aad qortid kadibna waxa aad qoratid kadibna aad soo export gareysid xogeer way yara adag tahay haddii aad u maleynayno inay adag tahay because halkii project la yaabo inaad sameyso 30 component iyo 40 component iyo wax ka badan marka like 34 waa tirada minimum ka ama tirada ugu yar. Okay, oo aad sameyn kareysid marka you need marka waxa u baahan tahay wax ku caawiya marka maxaa ku caawinaya isleedahay extension. So extension ka isticmaalaysa marka waa extension kan oo React marka dhammaan inta badan React developers ka dhan ay isticmaalaan oo marka very important ya marka extension kan install ha ku aado hadii kale components ka aad iyo aad ay ku adkaanaysa inaad component aad sameyso because mar walba saas muu sameyn jirto. Okay, sida u sameynaa marka hadda halaan aakhirey dhan waxa leeyahay RFC wabillahi tawfiiq mujida. Okay, marka la ku ilaa leeyahay RFC wabillahi tawfiiq intaas waa laakiin RFC waxa la soo jawaabay marka React and arrow function export component that means export hoos la geen doona hadii export arid in la soo hormarina intaan un baa ka dhidanaysa export marka inta la keen doona that means hadhow marka import days waxa dhex gelinaysa bracket dhex gelinaysa. Okay, bracket kana dhex gelinaysa oo bracket taas oo baan because export bisa soo dhaa soma. Okay, so intaas waaye waxa rajayna hadda inaa fahanteen so RFC iyo RAF CE. Okay, that's it. marka saas oo sameyn doona mar walba waxa rajayna inaa la socotaa marka import aan oo React and every time muu baahnid waa sharaf shirta you don't need it now so intaana ku dhaafinaysa marka hadda waxa rajayna inaa fahanteen sida loo sameeyo components-ka sida marka loo soo import gareysto sida loo isticmaalo iyo wixii la mid ah marka waxaan u gudbeynaa marka cashiradeena kale.